الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ولسورة النمل بان كجرنا waxaa noogu soo dambaysay nimcooyinkii ilaahay ee markaana la tusaalaynayay. waxaa noogu soo dambaysay yaa idinku hanuuniya dulumaadkii mugdiyaalka bariga iyo baxarka, yaa soo dira dabaylaha bishaaro ayagoo xambaarsan baa la yidhi naxariista alla horteeda. ma ilaah baa alla micigiisa ahaaday. tacaala allahu camaa yushrikuuna. ilaahay baa ka sarreeya waxay alla ugu sharig yeelayaan. aman yabda'u lkhalqa, khalqiga kumaa bilaaba uma yuciiduhu, ka bacdina soo celiya. waman yarsuqukum, yaa idinka arsuqa min asamaa'i, samada xaggeeda iyo waalardi arladaba. a ilaahun, ma ilaah baa maca allaahi, ilaahay micigiisa ahaaday. qul dheh haatuu burhaanakum, xujooyinkiina la imaada in kuntum saadiqiina, kuwa run sheegaya haddaad tihiin xujooyinkiina markaa keena. war yaa khalqigaan bilaabay, kadib yaa soo celinaya marka gebagabada la gaaro. yaa cirka idinka quudiya iyo arlada labadaba. ilaahay miyaa jiro alla micigiisa ah. qul haatuu burhaanakum, xujooyinkiina la imaada dheh, caddaynahaya in ilaahay alla kale micigiisa ku lamaanan yahay. xaaladaasi hadday jirta burhaantiinii xujooyinkiina keena, in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina, kuwa markaa run sheegaya. qul dheh laa yaclamu ma oga man fi samaawaati, samaawaadka waxa ku sugan iyo waalardi arladaba algayba, wax qayb og ma jira ila allahu, ilaahay mooyaane. alla ma ahee cid kale oo qayb taqaanaa ma jiro. ama samaawaad ha ku sugnaadaano ama arlada ha joogaana, ilaa ilaahay maahee qayb wax sheegi karoo og ma jiro. wamaa yashcuruuna, mana oga ayaana yubcahuuna, maalinta lasoo bixinayo. maalinta lasoo bixinayana ma oga buu yidhi ilaahay. qul dheh rasuulkii allow laa yaclamu, ma oga man oo fi samaawaati, samaawaadka ku sugan oo dhan iyo waalardi arladaba algayba, qaybkii waxa ilan ma oga. roobka maalinta uu imaanayo, raximkiin magaleynka waxa ku jira, naf waxay beri kasbanayso, naf meesha ay ku dhimanayso, cilmiga saacadda qiyaamii ogaalkeeda wax sheegi karaa ma jiro. ama samaawaad ama arlaha ku sugnaadaana ila allahu, ilaahay maahay subxaana wa tacaala. ila allah maahane. wamaa yashcuruuna, mana oga ayaana yubcahuuna, goorta lasoo bixinayo. bal iddaaraka, wuu haleelay cilmuhum, ogaalkooda fi laakhirati aakhiro gaaray. bal hum ayagu fii shakin, shakibay minhaa kaga sugnaayeen saacaddaa qiyaama ama aakhiro xaggeeda. bal hum ayagu minhaa xaggeeda camuun, kuwa ka arag la' bay markaa ahaayeen. laakiin maanta oo bacfigii la gaaray, qiyaamihii arkeen. fa basaruka alyawma xadiid, si fiican bay markaa u arkayaan, waayo cilmigeedii bay haleeleen, gacantay ku hayaan oo way gaareen. baliddaaraka, wuu haleelay oo wuxuu gaaray cilmuhum, cilmigoodii ogaalkoodii fi laakhirati aakhiro. marka bacfiga laga soo bixi waatay dhahayaan yaa weylanaa man bacahanaa min marqadina. sidaa darteed bay maanta gacanta ku hayaan. waata alla tilmaamay adduunka inta la joogayna way ka arag la'aayeen, way ka arag beeleen. laakiin maalinta la gaaro, asmic bihim wa absir, yaa ka maqal badan oo ka aragti badan. laakiin الظaalimuuna alyawma fii dalaalin mubiin. laakiin qiyaamaha markii ay tagaan, fabasaruka alyawma xadiid, fakashafnaa canka ghiطaa'aka, dawalkii baan ka qaadnay buu dhahay ilaahay. idan wuu gaaray oo wuxuu haleelay ogaalkoodii fi laakhirati aakhiro. bal iska daaya, hum ayagu fii shakin, shaki bay minhaa xaggeeda ka qabeen markii hore. bal hum ayagu minhaasa aakhiro xaggeeda camuuna, kuwa ka arag la oo ka indha la' bay markaa ahaayeen. waqaala aladiina, kuwiina waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay, a idaa kunnaa, haddii aan ahaana turaaban carro, anagii wa aabaa'unaa aabbayaalkeenba, a innaa lamukhrajuuna, annagoo mana la soo bixinaya.
annagii aabbayaalkeen haddaan ahaana turaab iyo carro iyo wax rufaad ahoo go-go-oo baaba'ay annagii aabbayaalkeenba madib baana loo soo saaraya. wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay a idaa kunna haddii aan ahaanoon a inna annagu lamukhrajuuna kuwa lasoo bixinaya miyaan nahay. laqad wucidnaa waana loo yabooho waana lala ballamay haadaa arrintaasoo waana loo sheegay naxnu annagii wa aabaa'unaa aabbayaalkeenba min qablu horaana loogugu sheegay wax dhacayna ma jirto. aabbayaalkeenii kuwii kasii horreeyaa la dhihi jiray waa lasi soo bixina, wax la soo saaray ma laha. kuwii kalaa tegey wax la soo saaray ma laha. kuwii ku xiga way tageen wax la soo bixinayaa male. waxaad fahmaysaa inaysanba weli fahmin waxa la yidhi, waayo ayadoo dad adduunka jooga dhiman yihiin ayaa laysi soo bixinayaa, wax dhahay ma laha. ayaguna waxay rabaan inay arkaan sida loo soo bixinayo. wax soconaya ma aha. laqad wucidnaa bay dhaheen waana loo yaboohay haadaa kan soo saaridda ah naxnu annagii wa aabaa'unaa aabbayaalkeenba min qablun hadda ka hor. in haada maa haadaa waxaan maba ahan bay dhaheen ilaa asaatiiru alawaliin, asaatiirtii khurafaadkii sheekooyinkii hore meehee wax kale oo ka jira iyo waxaan la tilmaamaya nebiyo tilmaamayaan waa lasi soo bixina haddii la baaba'a iyo wax ka jira markaa ma laha. qul waxaad tidhaahdaa rasuulkii allah siiruu socda fil ardi arlada dhexdeeda ku socda oo fanduruu eegoo fiiriya kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmujrimiin, mujrimiintii dembiilayaasha ciribtooda. dad badan oo idinkoo kalaa jiray bacfi qiyaamo inkiray, waxdaaniyada ilaahay diiday, shirki meehay tawxiid lagu keli waayey. kuwaas wixii ku dhacay ciribtooda saad u aragtaan ordahoo magaalooyinka ku safra, socda oo soo fiirfiiriya meelihii dadka mujrimiintay deganaayeen iyo sidii loo halaagay. qul dhee rasuulkii allah siiruu socda fil ardi arlada dhexdeeda mara oo ku socda oo fanduruu eegoo fiiriya kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmujrimiina, mujrimiinta iyo dembiilayaasha ciribtoodii. walaa taxzan ha murgoon marka calayhim korkooda. rasuulkii allah kuwan edabdarrada iyo shirkiga iyo bacfi inkiraata ku jira ha ka murgoonin korkooda. walaa takun hana ahaanin fii dayqin ciriiri iyo mid la ciriirtooma mimaa yamkuruuna waxay dhagarfalayaan, makriga iyo shirqoolka ay wadaan, ay bacfi qiyaamo ku inkirayaan oo ay ilaahay ku diidayaan oo adi xataa ku talagalayaan inay kugu dilaan. waxaasoo dhanba dayq iyo ciriir yuusan kaa gelin. walaa taxzan ha u murgoonin calayhim korkooda. aad buu u jeclaa inay aaminaan nebiga, aad buu u rabay inay rumeeyaan. waata la yidhi waxaa la dhici kartoo laga yaabaaba inaad naftaada kabeedo hadday rumayn waayaan. marka waxba ha u murgoonin. walaa taxzan ha murgoonin calayhim korkooda. walaa takun hana ahaanin fii dayqin ciriiri mid kaga sugan mimaa yamkuruuna waxay makri iyo dhagarfalayaan. intaba wayaquuluuna waxay odhanayaan mataa goormee haada alwacdu ballanqaadkan iyo yaboohan weligeed la sheegaayo goormuu ahaanaya. in kuntum haddaad tihiin adii saxaabadaadaba saadiqiina, ama in kuntum haddaad tihiin adii nebiyaalkii idinka horreeyeyba saadiqiina kuwa markaa run sheegaya. bacdi qiyaamaa jira iyo waa lasi soo bixinaa iyo weligeed waa la sheegi jiray. wax dhacayna markaa ma aragnee bal noo caddeeya. saasay markaa leeyihiin. wayaquuluuna waxay odhanayaan dadka bacdiga qiyaamaha inkirsan ee diidan mataa goormee haada alwacdu ballanqaadkan uu ahaanayaa. wacdigan iyo yaboohan goormuu ansaxayaa, goormee la dhaqan gelinayaa, goormuu fulayaa. in kuntum saadiqiina haddaad tihiin kuwa markaa run sheegaya. ee qul dheh rasuulkii allow casaa waxa xaqiiqo ahba an yakuuna inuu ahaado radifa lakum mid idinla fangalsan idinka bacdu aladii kii qayb ka mid ah tastacjiluuna aad degdegsiya dalbaysaan. wixii bacfi qiyaamo ahaa iyo cadaab ahaa inuu idinku dhow yahay, idinka idinla xiriiro, idinla fangalsan yahay. fangalku waa dabaraac oo inuu aad idinku soo dhow yahay ayaaba suuragal ah dheh. qul waxaa dhici kartoo laga yaabaa qul dheh casaa wuxuu mudan yahay ama la arkaa ama xaqiiqo ahba an yakuuna inuu ahaado waxa aad degdegsiya dalbaysaan radifa lakum mid idinka idinla fangalsan aan dhinacna idinkaga haraynin. bacdu aladii kii qayb ka mid ah tastacjiluuna aad degdegsiya dalbaysaan.
xataa waatay dhaheen rabbanaa cajil lanaa qitanaa qabla yawmi alxisaab, rabbigeenuu noo soo dedeji nasiibkaan kugu leenahay intaan xisaabtaba la gaarin. waxay dhaheen allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika, qur'aankan hadduu xaq agtaada ka yimid uu yahay faamdir calaynaa xijaaratan min aلsamaa, dhagxaan nagu soo deji cirka, aw i'tinaa bicadaabin aliim. waxaa dhici kartaba waxyaabaha aad degdegsiya dalbaysaan gobol ka mid ah inuu radif idinka idinla yahay mid idinla fangalsan. wa ina rabbaka rabbigaana laduu fadlin fadli mid u saaxiiba waayo cala annaasi dadka korkooda uu fadliyeeyo, ayagoo cadaabkii codsanaya, ayagoo wixii lagu cadaabi lahaa gacanta ku haaya, ayagoo inkirsan bacfigii qiyaamaha, yuu haddana ilaahay fadligiisa laysaga naxariisana, aan cadaabka lagu soo dedejinaynin. wixii ay mutaysteen ayadoo dhab ay tahoo weliba ay yihiin dad wixii lagu cadaabi lahaa gacanta ku haaya, yuu rabbi iska fadilayaa, cadaabkana ka akhiraya. wa ina rabbaka rabbigaana laduu fadlin fadli mid u saaxiib ah waaye cala annaasi dadka korkooda, walaakina akharahum laakiin badankoodu laa yashkuruuna ma shukrinayaan. wa ina rabbaka rabbiga layaclamu kii og waaye maa tukinu waxay qarinaysa suduuruhum laabahooda, iyo wamaa yuclinuuna waxay iclaaminayaan labadaba, waxay muujinayaan iyo waxay laabaha ku qarinayaan labadaba ilaahay waa isugu mid subxaana wa tacaala. alla ku cilmi badan buu ahaaday oo ilaahay waa og yahay subxaana wa tacaala. wa ina rabbaka rabbigaa laduu fadlin fadli mid u saaxiiba waaye cala annaasi dadka dushooda fadli uu siiyo, waxyaabo ziyaadaa uu siiyo, ayagoo weliba cadaab mutaystay aan ku soo dedejinin. laga yaabay intaa inay tooba keenaanay hagaagaanay xaqa iyo diinka ku socdaan, walaakina akharahum laakiinse badankoodu laa yashkuruuna ma shukrinayaan. wa ina rabbaka rabbigaana layaclamu waaye midkii og maa tukinu suduuruhum waxay qarinaysa laabahoodii, wamaa yuclinuuna wixii marka ay muujinayaanba, wamaa min gaa'ibatin wax cilan oo ka qarsoon fi samaa'i samada iyo walardi arladana ma jirto ilaa ay jiraanna fii kitaabin mubiin, kitaab mubiin ah oo cad bay ku sugan yihiin buu dhahay ila subxaana wa tacaala. gaa'iba ma jirto waxaysan dadku markaa arkaynin, wax cilan oo aan loo jeedin ilaa ilaahay kama qarsoono kitaab bay ugu qoran yihiin. wamaa min gaa'ibatin gaa'ibad iyo maqnaasho xaggeeda oo fi samaa'i waalardi ka cilan oo aan la arkayn oo qayb ka ah ilaa fii kitaabin, kitaab bay ku sugan yihiin mubiinin ee markaa cad. ina hada alqur'aana qur'aankan ee kan ahna yaqusu waa qisoonaya oo uu ka sheekaynayaa calaa bani israa'iila reer bani israa'iil dushooda wuxuu uga qisoonayaa akhara aladi kii badankiisa hum ayagu fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna ay yihiin amay ahaaya kuwa markaa isu khilaafa. waxyaabihii isku khilaafayeen agharkiisa ayuu markaa uga sheegayaa, kiibuu u qisoonayaa, arrintiibuu markaa u tilmaamayaa. wa ina rabbaka rabbigaa layaclamu allihii ku cilmi badan waayo og maa tukinu waxay qarinaysa suduuruhum laabahooda, iyo waxay qarinayaan laabaha ay ku qarinayaan, iyo wamaa yuclinuuna wixii markaa ay muujinayaan labadaba. wamaa min gaa'ibatin wax qarsoon gaa'ib ahoo ka cilan xaggeeda fi samaa'i samada gudaheedii waalardi ma jiro ilaa ay jiraanna fii kitaabin, kitaab bay ku sugan yihiin, kitaabkaasoo mubiinin cad. ina hada alqur'aana qur'aankan ee kan ahna yaqusu waa qisoonayaa, waa sheekaynayaa oo waa hadlayaa oo wuxuu uga warramayaa calaa bani israa'iila reer bani israa'iil korkooda akhara aladi kii badnaantiisa ama akhara aladi kii badnaantiisa hum ayagu fiihi yakhtalifuuna waxay isku khilaafayeen agharkiisa ayaa looga warramayaa, dhammaan lama dhihin. waxyaabaha kale laga tagana waa waxaanba faa'iidihii qiimo markaa ku jirin. reer bani israa'iil wixii ay isku khilaafayeen oo dhan qur'aankan wuu caddaynayaa. sidaa darteed ayaa qur'aanku wuxuu noqday qur'aan shaamil ah oo wax uu ka soo tegey aysan markaa jirin, wax walbana ilaahay ku caddeeyey subxaana wa tacaala. loona baahanya ummaddu inay ku cibro qaataanna camal falaanna, wuxuu u dirayna sameeyaan, waxay uu ka reebayna ka haraan, waayo wax kasta waa kii markaa bayaamiye. aman yabda'u alkhalqa khalqiga yaa bilaabay uma yuciiduhu
kabacdina soo celinaya allaha noocaasa miyaad ilaahay kale micigiisa ahaaday kaa miyaa khayr badan mas waxyaabaad ugu shariig yeelaysaan waman yarsuqukum war yaa idinka quudiya min asamaa'i samada xaggeedii waalardi arlada a ilaahun ilaah miyaa maca allaahi alla micigiisii la jirkiisa ah qul dhehaatuu keenoo la imaada burhaanakum xujooyinkiina in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya qul waxaad dhahdaa rasuulkii allow laa yaclamu ma oga man oo fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo waalardi arladaba algayba qayb og ma jira ila allaahu ilaahay mooye wamaa yashcuruuna mana oga oo ma dareemayaan ayaana yubcahuuna goorta laga soo bixinaya qubuurta baliddaaraka wuu haleelay cilmuhum iyagu fii shakin shaki bay kaga sugnaayeen minhaa xaggeeda waa aakhiree bal hum ayagu minhaa xaggeeda camuuna kuwa arag la ayay ahaayeen waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay a idaa kunna haddii aan ahaano turaaban carro iyo wa aabaa'una iyo aabbayaalkeenba a innaa anagu la mukhrajuuna ma dib danbaana loo soo bixinayaa laqad wucidnaa waana loo yaboohay haadaa kan naxnu anagii wa aabaa'unaa aabbayaalkeenba min qablu horay baana loogugu sheegi jiray in haadaa kanimada ahanba ilaa asaatiiru alawaliina asaatiirtii iyo sheekooyinkii qurafaadkii horhore maahane qul dheh siiru socda fil ardi arlada ku socda oo fanduruu fiiriyo eega kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmujrimiina mujrimiintii dembiilayaasha ciribtooda walaa taxzan ha murugoonin rasuulkii allow calayhim korkooda ha u murugoonin walaa takun yuusan ahaan oo ha ahaanin fii dayqin mid laabta uga ciriirtooma oo ciriiri iyo murug ay ka buuxsanta mimaa yamkuruuna waxay shirqoolfalayaanay dhagarfalayaan wayaquuluuna waxay odhanayaan mataa goormee haada alwacdu wacdigan ee kan ah iyo ballanqaadkan qiyaamihii bacsi qiyaamaa jira aada leedihiin goormay noqonaysaa in kuntum saadiqiina haddaad tihiin kuwa markaa run sheegaya quldha rasuulkii allow casaa mudanba an yakuuna inuu ahaada radifa mid fangalsan lakum adinka oo isla markii idin qabanayo idin haleelahaya bacdu aladi kii gobol ka mid ah ama qayb tastacjiluuna aad degdegsiya dalbaysaan wa ina rabbaka rabbigaana laduu fadlin waa alla fadli u saaxiiba cala annaasi dadka korkooda uu fadliyeeyo walaakina akharahum laakiinse badankoodu laa yashkuruuna ma mahad celinayaanu ilaah u shukrin maayaan wa ina rabbaka rabbigaana layaclamu waa allaha ku cilmi badan maa tukinu suduuruhum wamaa yuclinuuna laabahooda waxay ku qarinayaan iyo waxay muujinayaan labadaba wamaa min haa'ibatin wax haa'iba xaggeeda ka ahoo ka qarsoon ma jira fi samaa'i samada iyo waalardi arlada ee ka maqan ilaa fii kitaabin ilaa hadday jiraanna fii kitaabin kitaab daydiisay ku sugan yihiin kitaabkaasoo mubiinin cad ina haada alqur'aana qur'aankan ee kan ahna yaqusu waa qisoonaya waa hadlaya oo wuxuu u sheegayaa calaa bani israa'iila reer bani israa'iil dushooda akhara aladi kii badnaantiisa akhara aladi kii hum ayagu fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna ay ahaayeen kuwa markaa isu khilaafaa in badan ayuu u sheegayaa oo ay markaa isku khilaafi jireen intaa kabacdi xaqa ayay markaa ogaanayaan wax allaala wixii xaq ahaa oo kitaabkoodii ku qornay ayagu isu khilaafeen madax adeeg iyo cinaad iyo kibir ay u diideenna waa u sheegayaa taasayna markaa ku ogaanayaan wa inahu lahudan waraxmatun lilmu'miniina wabillahi tawfiiq wallahu subxaanahu watacaala